بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدوين آديات وقيمها بطن قبل كن هود قارهان عاصمة ديسة بلي قبل سلام قالي نقا قدوما آدمان دي سلامنا وقت دير بعد تاقميدين سودوينتي إذا إن بدن بعد الناس هلقوا تاقميدين إلى إمكا وحل الدباء آيات ندقي سنسان وأنو إذن كما هنقينا وحنو إذن لنا هاي جزاكم الله خير. الله يدكابري والله ريال وقت آدو بلادن أيا هلكن مرية أو قامنيو قدوميها حزبك الكلمية مجاهد محمد كاهن أحمد oo wasiirkeena dakhiliga wafdiga hogaankii xisbiga intiisii badnayd ayaa ka mid ah laba xubnood oo kaliya ka maqan hogaankii xisbiga. waxaa hogaankii xisbiga halkan ka fadhiya oo jooga marka laga reebo anigoo hadlay maxamed oo gudoomiyey xisbiga ah, saashin oo hadlay baa ka mid ah hogaanka xisbiga. waxaa ka mid ah faysal oo xoogayihii guud ee xisbiga oo jaanis u yeelan inuu hadlo. waxaa kaloo halkan maraya madaxda sare xisbiga oo isaani ka mid tahay oo uu ka mid yahay isaguna wasiir axmed nuur faahiye oo isaguna aan fursad u helin inuu hadlo. dhanka kale walaalayaal, wafdi ballaadan oo xagga xukuumadda ah oo aanu wada soconno oo wasiirada gobolku ay ugu horeeyaan, hadday tahay wasiirkeena arrimaha dibadda ee ictiraafkii soo gaarsiiyey halka aad arkaysaan ee cadowgeennii oo dhan uu ka fadhiyi laayahay ee dagaalkaynagu bilaabnay aad arkaysaan markii uu yimid ciise wasiirka arrimaha dibaddu wax badan baa la socday. dadka qaarkood baa hibays kale kubadda marka la ciyaarayo waxaa jira ciyaartooy marka dambeynta la soo geliyo goolashuba marka dambe unay dhashaan, soo ma aha dambeynta ciyaartooyga. ciise wuxuu nasiib u yeeshay in waktiga uu maanta wasiirka arrimaha dibadda yahay somalilan ictiraafkeedii uu meel dhow joogo ilaahay dabkii layna aqoonsan doono. markaa gobolka hawd baa ku suntanaan doona ictiraafka somalilanna, soo ma aha. dhanka kale wasiirka tiknolojiyada ninka dhalinyarta saaxiibkay axmed oo isna hadalka iga horreeyey, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo hadalkii aad iyo aadka u qiimaha badna halkan ka yidhi liibaan saaxiibkay liibaan. dadka aadka u badan ee mas-uuliyiinta ee xilalka kala duwan haya oo uu ka mid yahay barasaabka gobolka maroodijeeh, barasaabka gobolkan hawd aynu martida u nahay maayirka degmada ballanguballe, madax aad iyo aad u badan, dad badan oo qiimo badan oon halkan fursad u helin inay hadlaan maantana ay ahayd runtii inay hadlaan oo uu ka mid yahay saaxiibkii qodax oo halkaa ka soo jeeda oo ay ahayd in waayo badan ista ka warramo iyo dad badan oo kale. waxaa halkan ka hadlay labadeennii hablood wasiir yurub oo runtii ku suntan wasiirnimada kasakow halgankii iyo hablihii ahaa ku suntana halgankeenna sahra oo garabka haweenka ee xisbiga kulmiye oo dhan mas-uul ka ah. walaalayaal ma tirin karo mas-uuliyiinta kala duwan in badan baan ka tegayaa. yaan ilaabin xildhibaanka qaaliga ah ee ku soo biiray xisbiga kulmiye cabdikariim soomaali, xildhibaankeena qaaliga kusoo biiray xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u salaamayna. waxaan leenahay soo dhawow, ku soo dhawow xisbigaagii. wuu sheegay xisbiguu ka mid ahaa, laakiin ayaantii golayaasha deegaanka la goray xisbigaa ka buuxsamay. xisbiguu dad badan yahay, dabadeedna isagoo si fudud ku soo baxayay ayaa layidhi bal adigu soco meelaha kale iska soo shara. wuxuu iska soo sharaxay waanu soo baxay waana kulmiye kusoo biiray mar kale isagoo walba kulmiyaha. waynu soo dhawaynaynaa cabdinaasir oo halkan fadhiya, madaxda kala duwan ee aad iyo aadka u badan dee meel sheegi karaya madaxda dhan ma wada sheegi karayo ilaa maanta oo dhan tiladana wallahi inana dhamaanin. dhammaantiin waan idin salaamaya walaalayaal. shiina saliiloolka taawuliya shiina waa runtii halgamaa weyn waa yahay walaalayaal. waad mahadsantihiin. hadalka intiisa badan wax odhan doona guddoomiyaha xisbiga, laakiin anigu saddex kelmadood oo fudud baan odhan doona. waa kii halkan ka hadlay waa kii halkan ka hadlay wuxuu inoo tiriyey waa kii halkan ka yidhi kelmadaha cajiibka kulmiye. waad maqlaysaa soo maa aan tegey ilaahay idanku waan idin soo gaarsiini haddaan isdhegaysano
inta makarafoonka inoo hagaagayo hadalka waan inoo sii wadi waayo waqtigaa inagu socda aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal waxa weeye mar wal oo xisbiga kulmiya uu goob yimaado muhiima oo dadka kula hadlayo aad waxa u dheeraada hadalka sababtu waa maxay dadka iyo kulmiye way isjecel yihiin ma kala maarmayaan waxaan xasuusnahay waftigii aanu ku maraynay gobollada bariga habeenada ka mid a degmo iyo gobol weyn waanu ka hadlaynay 8 fiidnimo hadalka bilaabnay 1 habeennimo ayuu dhammaaday 8 habeennimo hadalka bilaabnay 1 habeennimo ayay dadkii hadalkii dhameeyeen haddaba 8 fiidnimo ilaa 1 ka warramay ilaah baan ku dhaariyey yani saasaa dhacda waxaa dhacaysay gobolladii iyo degmooyinkii aanu maraynay meel walba 5 saacadood oo xiriira ayay dadku fadhiyeen oo la isdhegaysanayay waanu ka mahadnaqaynay in badan dadka waanu dhegaysanaynay oo dadku waa inay sheegaan shucuurkooda iyo qalbigooda iyo nafahooda iyo naftooda waxa ku jira maankooda waxa ku jira waa inay sheegaan marna hala xishoonina hana ka baqina inaad sheegtaan balle gubadle waxay u baahan tahay waddada hargeysa isku xidha in loo dhammaystiro sax wey inaad sidaa tidhaahdaa baanu ku farxaynaa waxaanu leenahay waa inaanu dhammaystirnaa annagaa bilowna waanu dhammaystiraynaa biidni illahi tacaala waan dhammaystiraynaa marka hadalkaa sheegitaankiisu ceeb maaha wax lala gabado maaha wax laga heshoodo maaha wax lala baqo maaha laakiin hadalkaasi macnihiisu ma aha kulmiye wax kama qaban gobolka haddaad sidaa tidaa ceeb wey ma odhan kartid sidaa waayo in wax laga qabtay baa dhaba laakiin waxa yadna dhaba inay wax dhiman yihiin waxa dhimana waxa dhammayn kara kii bilaabay ma dhammaystiri kara somalilan qofkii calankeeda keenay ee u dagaalamay ee halkaas soo gaarsiiyey kuwu dhintay iyo kuwu nool uunbaa ictiraafkana gaarsiin kara miyaana sa ahayn markaata gobolkan balegubadle taariikhdiisa wax badan baa laga warramay waan ku faanaynaa dhammaanteen markaynu reer somalilan nahay waayo jiritaanka gobolkan iyo jiritaanka magaaladani waxay ku suntan tahay jiritaanka ummaddeenna oo dhan ayay ku suntan tahay runtu sidaa weeye walaalayaal dhan kale markaan xagga xisbiga ka hadallana waxaan xasuustaa 2002 kulmiye oo urura oon xisbi ahayn urur ah oo 8-9 urur tartamayaan markii dambe ay ku soo hadheen 6 urur siyaasi ayaa waxaan xasuusanaya halkan aanu nimid waxaan hogaaminayay wafdiga ilaahay qabriga ha u dheereeyey mudane axmed maxamed maxamuud sinaaye waa 2002 wey waa ololihii baa bilaabmay kambayn maalin halkan aan ka gallay maalin taariikhi ahayd ilaa iminka axmed wuu ka sheekayn jiray yaa ayaha balegubadle ordaa soo tagun xisbi kulmiye iyo xasuusan goob ka mida goobaha barakaysan baa laga yidhi maalintaasoo dadku way seegeen maalin jimcay ahayd khudbad jimcay ahayd layaabay ahayd miyaad xasuusantihiin layaabay ahayd waa xaqiiqi wey xisbigii walal kulmiye ee ururka siyaasiga beriga ahaa balegubaddaa soo saaray waxaan xasuusanahay 10 qof ama 15 qof ee ugu horreeyay xisbiga allah ha naxariisto daawud maxamed geyle oo ahaa xogeeyay guud ee xisbiga kulmiye ugu horreeyay dadkii ku suntanaa guusha kulmiye ayuu ka mid ahaa allah ha naxariisto sidoo kale kaysa isna geeriyooday oo xogeeyay guud ee xisbiga kulmiye gobolkan hawd magaaladiisan balegubadle waxay ku suntan tahay halgankii marka aynu ka nimaadno xisbiga kulmiye waayo kulmiye waa balegubadlena waayo balegubadlena waa kulmiye yaa kula tartami kara cid kastaba ha adasho kulmiyaa murka soo odhanaya waan huba shayna manaysa ahayn kulmiyaa murka soo odhanaya waayo dhan kale walaalayaa annagu diidi mayna in la tartamo waxaan leenahay axsaabta qaranku ha tartamaan tartan xalaala waanu sheegaynaa annagoo hoggaankii xisbiga tartan xalaala inaga dhexeeya kubad baa la ciyaaraya waa la tartamaya kubadda waa la kala ciyaari wanaagsan yahay kubadda marka la ciyaarayo dibtanaasili waa taqaanaa soo maa dhallinyarta kubadda ciyaarta man city waa taqaanaa soo maa baashay waa taqaan madridiya soo maa kubadda waa la kala ciyaari wanaagsan yahay tiim khashiina mar walba laga badiyo tiiman weligii laga badin masku mid baa kulmiye waa tiiman laga badin wey dadkaa ka markaatiya laakiin kulmiye inaan laga badin maxaa u sababa waxaa u sababa dadweynaha shacbigaa doorta kulmiye shacbigiisuu aaminsan yahay kulmiye codka dadku ka doonaya waa dadka reer somaliland kulmiye uma gacan haadiya dad kale kulmiye meel kale codka kama doono kulmiye kaambeynka meel kale shacbigiisuu ka gala meelnasa ahayn
فضلوا ميسو أنا وكامبين هذا ويبنا ويا تابي تبدأ كستون ده مالك أنا كامبين لقى كلو كامبين كتبدأ كل ميو كوبيا لكن كامبين كل ميو ألكي عش قال كويا بدأ كل ميو بيا مياني كذا هين مياني بنقول لا هين مياني أودوينا هين ماني قبل هين ماني سلاح له هين ماني عين وهين ما يبرع هين مياني عرقاب هين بالبنا ماني هين شيخ ماني مياني تريكر بول ما مياني لا بكرة عود كقصص ولا واقع ساجد في كل كيس من دون تا بكي أوي تلا أوي سمال لا نودن هذا نساو بلاو لما يكلم ما يسمع انت أصلا بكل ميو كسوتيه كل ميو ولا ليه لما يكون لما يمكن أورغد الترجمان حسب كي لما يصوب حيوان لما يكون يصدق دي واحد ويدين عدك آت كوكبنا يلا نجات قال لما يكون يتوكي عدك برنامج كسوب احنا ويدين لما يكون يتوكي هذا كي بدا لما يكون يصدق هنا واتك معنا فينا عفر يلا واتك معنا فينا ولا ولا تشوف فضل اسمعي محل سقفاني وين بين ساعين أنا بقول مية إنه أو حين ولا ليه كنت تمنا غور وناكسن كلمة وناكسن ولا ليه وحين ولا ليه صحدوا وإنه فرنتها أين تتنو عينا كنت تمن عيبنا كنت تمن سمنا ينا وحكي شعبنا ينا وحكي سلاطين تنا ينا عاين أمتنا ينا عاين هبلنا ينا عاين كل ما يتهم منا مجلسه ما بروفيسور ما كان نقعد كواحد نقول الناس شرف له حتى قف كان عد كناسين واحد اللي ولا له حبتي هذا عيد الدكتور عد كسين أي أنا قف كان ولا لنا قف يلا بدل اللي هذا قف قال كان قال لما ملك القابة إذا أنا عد كي عد كلام السيرة ومين نقصنا الله قصد وايد لكن واحد مش هيجي أنا قعد بدنا هاي ونقبل إنه ما نشيجنا محل زمان يومك إذا قف غير اللي يقول لا ما قف قوم الكلام ده ممكن تسوي كده حزب كلام عد كي سسينيا أي معها واتسي لكن كنت لك سني شيء اللي قاعد بنقول ولا قاعد بنقول ما كل يوم وسلاوي ويا كل يوم حوالي حملها كل يوم حوالي هويويك كل يوم حوالي دنيتا كل يوم حوالي سأنت طبيعي كده نوري هاي أوردم بورس ولا ليال الله قال لي ما يو تتمنى كلنا قول الله قال لي تبدأ لو كلي تروح وحنولين هاي عدكي نمر كلنا هو آمين أو نصيرة هذا يدلني هو قصب معها وعلى markii mar kale la siiya oo hawlmarkaas xoolaha dhamaystirmi oo Soomaaliland baa aqoonsi heli oo waxaynu doonayeen inuu gaari oo halgankeedii baa dhamaystirmi oo waxaynu noqon ummad Soomaaliland caalamka ka mid ah walaalayaal inagoo walaalayna codayno oo tartano marka la tartamana halaysan baleeyo sidii kulmiye 8 cod wax ka yar ama wax la mid ah ama 200 cod ugu hadiyay ee ku nabadgeliyay ee ku salaamay oo 8 sano aan ku ah ayaa la rabaa hadii 8 cod wax ka badan lagaaga badiyay oo 8 kun lagaaga badiyay waa number badan inaan diidin Soomaaliya meena saahayn imikana tartan wala tidweynu galena oo ceeb ahayn dad wala tartamayaan laakiin kursiga lagu tartamaa ceeb ma waana kursi kaliya kursiga kaliya saddex qof oo saddex madaxweynayaal doonaya ayaa u tartamaya ma saddexduba ku wada fadhiisan karaan midun baa ku fadhiisanaya soo maaha midka ilaahay u qoran baa ku fadhiisanaya soo maaha midka shacabka codka siiyaan baa ku fadhiisanaya soo maaha deegaan lagu doonaya shacabku ka gasooban yahay waxaa guul sheegan kara ninkay u gartaa iyagu ay codka siiyaan iyaa codka siinaysaan codka iyaynu siinaynaa codka siinaynaa insha allahu tacaala